الله naxariistay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka degmada Yakshiid Macallin Xuseen Filaweyne ayaa goor dambe oo xalay lagu dilay qarax ka dhacay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir. marxuumku waxa uu ku dhintay qarax la kacay gaari uu saarnaa kaas oo la sheegay in loogu xiray gaari uu isagu watay. qaraxa uu ku dhintay Xuseen Filaweyne ayaa dhacay xilli uu ku sii socday gurigiisa oo ku yaala xaafadda Buula Maaxay ee degmada Kaaraan. qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan degmada Yakshiid oo la hadlay Keenan ayaa xaqiijiyay dhimashada gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada Yakshiid kaas oo qarax loogu xiray gaari uu watay. daqiiqado kadib halka uu qaraxa ka dhacay waxa tigay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya iyaga oo la sheegay inay goobta ka qaadeen gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka degmada Yakshiid kaas oo markii hore la tilmaamay inuu soo gaaray dhaawac garaab ah oo ugu dambeyn sababtay inuu u geeriyoodo. taliska booliska Soomaaliya iyo hay'adaha amniga gobolka Banaadir weli kama hadal dilka loo geystay marxuum Xuseen Filaweyne oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda maamulka degmada Yakshiid. dilalka iyo qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa bishan gudaheed joogta ka noqday magaalada caasimadda ah. shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya qarax lagula eegtay xaafadda lagu magacaabo Xaawa Casir iyaga oo qaraxa kadib rasaas ay fureen waxyeello ay ka soo gaartay dad